xubno uu horkacayo afayeenka guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray gudaha magaalada Burco kuwaasi oo indhayn ku sameynayay isla markaana u kurgalayay xaaladda shaqo ee xarumaha ururada siyaasaddu ay ku leeyihiin gudaha magaalada Burco iyagoo lana kulmayay gudoomiye kasta oo u fadhiya ururada kala duwan ee dalkan Soomaaliland dhawaan lagaga dhawaaqay gobolka Togdheer kana qorayay magacyada telefoonada iyo waliba magacyada xogayaasha iyo waliba qodobo kale guddigan ayaa waxa ay maanta kormeer ku soo sameeyeen ilaa iyo 12 xarumood oo kamid ah xarumaha urur siyaasadeed gaar ahaan urur kasta xarunta dhexe uu ku leeyahay gudaha magaalada Burco afayeenka guddiga diiwaangelinta qaranka Xasan Macalin oo u warramay warbaahinta ayaa waxa uu ka xog warramay ujeedada safarkooda guddigan oo ku guda jira kurgalka xarumaha ururada siyaasadda ee gobolada bariga Soomaaliland ayaa waxa ay maalintii shalay soo afmeereen hawlgalkoodii ku aadanaa gobolka Daadmareer gaar ahaan degmada Oodweyne iyagoo qiimeyn ku sameeyay guud ahaanba sida ay uga shaqeynayaan ururada siyaasaddu Cabdi Sattar Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.